ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga waa idin salaamay meel walba adduunka joogtaan. waxaa insha allah biidn illaahi albaari inoo socda barnaamijkeenii aan ugu magacdaray waxaan farxadda, guusha iyo deganaanshaha ka raadina meel qaldan haddaanu nahay dhalinyaro. sidaas darteed walaalayaal, xalaqadani waxaan biidn illaahi albaari ka hadlaynaa waxyaabaha saameynta ku yeesha dhalinyarada, kuwaasoo doonayo farxad, deganaansho iyo guul, laakiin meel qaldan ayay ka raadiyaan. asbaabaha keena inay biniaadanka meel qaldan aadaan ama meel xun aadaan, waxyaalaha noloshooda ku keena ayaa waxaa kamid ah walaalayaal waxyaalo badan hore ayaa usoo tilmaamay. haddana waxaan ka hadlayaa saaxiibka. sidaa usoo ogtihiin walaalayaal, diinteena islaamka waxay aada iyo aad uga taxadirtay in lala saaxiibo, in lala socdo dadka xun. arrintaasna biidn illaahi albaari qof walba oo muslim ah wuu ogyahay, wuuna ka dhaadhacsan yahay. laajli dalika, marka aninkaasi ka duulaya ayaa waxaan jeclaystay maanta inaan usoo bandhigo dhalinyarada wajiyaal aada u fara badan ay garanayaan ama ay maqleen ama ay la kulmeen. uma malaynayo laga yaabo dhalinyarada intooda dhan daawan doonto inaysan qaarkood kamid a la kulmin, laakiin maanta ayaan idiinsoo bandhigayaa anigoo leh dadkaasi idiinsoo bandhigayo ilaahay subxaanahu watacaala dartiis ayaan u jeclahay. waa dad marka aan la joogo aada iyo aada u faraxsanahay, ama markaan la kulmo intooda ugu badan lama kulmi mar walba, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala maadaama dartiis aan u jeclahay, meel walbo ay joogaan ama meel ii dhow hadday joogaan badanaa waa ka agdhawaadaa si aan uga faa'iidaysto. sida ogsoontii walaala, qofka dhalinyarada ahi waxaa lagama maarmaan ah noloshiisa inuu la saaxiibaa dadka khayrka uu ku tuhmayo, dadka wanaagga uu ku tuhmayo, inuu la tashtaa, inuu ugu sabraa dadkaasi, dadka allah subxaanahu watacaala barya habeeniya maalin ilaahay dartiis. walaalayaal, waxaad kalood ogaataa qofka muslimka mu'minka waxaa laga doonayaa inuu leeyahay asxaab fiican oo ilaahay subxaanahu watacaala xasuusisa. dadkana idin sheegaya walaalayaal, ma ahasa dad ila fac ma ahan, dad igu cilmi ah ma ahan, waa dad iga cilmi badan, iga sharaf badan, respect iyo xushmad iyo wanaag iyo khayr iyo waxaan u hayaa iyo ilaahay subxaanahu watacaala jacayl. dadkaasi walaalayaal, waxaan doonayaa insha allah biidn illaahi albaari wadadooda inuu ilaahay subxaanahu watacaala ii fududeeyo siduu ilaahay iyaga ugu fududeeyey. ilaahay subxaanahu watacaala jalla fii culaah adduunkani bil-aadanka muusan simin, siday farahaas u siman yihiin bil-aadankana way kala duwan yihiin. dadka aan doonaya inaan idiinsoo bandhigo walaalayaal waa dad aan la kulmay, qaarkood aan weydiistay dardaaran, maxaa la dhahaa, dardaaran, wacyigelin, aan la tashtay noloshayda ku saabsan. dadkaasi waa dadka cilmiga aan ku tuhmayo, dadkaasi waa dadka aan isleeyahay maalinta yowm alqiyaama biidn illaahi albaali kama qaala allah subxaanahu watacaala warasuuluhu ay diinta inoogu sheegeen, dadka wanaagsani saalixiinta ay maalinta yowm alqiyaama way isku shafeeco qaadaan. lacali waxaa la wariyaa orah ah, waxaan jeclahay dadka wanaagsani mana kamid mihi, laakiin waxaan rajaynayaa inay ii shafeeco qaadaan maalinta yowm alqiyaama. waxaad ogsoontihiin walaalayaal, nabigeena maxamed calayhi afdal salaami wa aska tasniim, khayru khalqillah asagoo ayaa waxaa la farayaa in uu ka agdhawaadaa dadka habeeni maalin ilaahay subxaanahu watacaala barya, ilaahay wejigiisna ugu dhawaada ilahay subxana watacaala dartiis. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wasbir nafsaka maca aladiina yadacuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha. ilahay subxaanahu watacaala jala sha'nu rasul sal slam wuxuu ku amrayaa inuu ku sabraa, inuu ku sabraa la socoshada ama la jooga dadka ilahay subxaana watacaala barya habeen iyo maalin, aroor iyo galab, ilaahay dartiis ayagoo ula jeedaan. waxaad kaloo ogaataa walaalayaal,
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حديث إمام الترمذي وصورينيو أي وحوليه هي الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني قفكو وحو دينتي سهيستا صاحبكي سيفيري قفك على صاحبيسو ولا ليال إليه سبحانه وتعالى حديث القدسي وحو كليه وجبت محبتي للمتحابين فيه جعلكي وحو كواجب نقضي كوا أنيقا درتي اسكو جعل والله إلهي درت أيون جعلها ددك أنت المامي دونو ودد آد ودا تقانان شرف إيا قيمة إيا علمي آد ما أركتي كو تقانان وحاد كلا أوغاتا ولا ليال صاحبك وناكساني أما ددك وناكساني أقونسو هذا إلهي درت ساسكو جعلاتان إيا لكولان كوذا وحيتهي وفائدوين بدن أيا لغا كو فائدة لغا هلا وحيتهي وحكسو حسوسنا طاعة إلهي سبحانه وتعالى إي عبادوينك وحكسو حسوسينيان إن مالنت يوم القيامة ددك إلهي درس اسكو جعل متقينتها إني كوبت بادي دونان كما قال تعالى في القرآن الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وحد كلونا أوغاتان ولا ليال سيدات أكسون تهين الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم حديث لغوري أيا وحو ليهي ما ننت يوم القيامة مؤمن إليه سبحانه وتعالى جنة كما نيستا أيا وحو ليهي صاحبك يجي أيان لأهي مركز أوحى لي صاحبك هاي جحيم أيو كجراي كلا صباح مركز أيو صاحبك كلا صباح أيا أهل النار أيا مركز أوحي أقرنا ين آيات قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لأجل ذلك مركز أريك سنوكدو لايو dadka ugu horeeyo ee aan jecelahay la jirankooda oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan waanada iyo wacyigelinta iyo dardaaranka aan weydiisto ayaa waxa kamid ah sheekhayga Sheekh al-Allaama Sheekh Yusuf Ahmed waxa kamid ah dadka amar walba marka la kulmo masay inoogu yimaadaan yani meeshaan ku noolnahay aan waana weydiisto al-Sheekh al-Fadil Sheekh Mustafa Haji Ismail waxaan kaloo la kulmay Sheekh al-Qari Abd Rashid Sheekh Ali Sufi وحان كلو لكلمي الشيخ العلامة شيخ أمن شيخ محمد عبد أمن وحان كلو لكلمي الشيخ العلامة شيخ نور علي جامع وحان كلو لكلمي شيخ أحمد يري وحان كلو لكلمي شيخ محمد إدريس وحان كلو لكلمي شيخ يحيى ألمس وحان كلو لكلمي شيخ شاطبي وحان كلو لكلمي شيخ دكتور علي محمد صالح وحان كلو لكلمي الداعي الشيخ كينياوي وحان كلو لكلمي الشيخ الداعي الشيخ سعيد راقي وحان كلو لكلمي الشيخ الداعي أبو طلحة وحان كلو لكلمي ولا ليال الشيخ الداعي الشيخ بعر وحان كلو لكلمي ولا ليال علماء آد أبرن الشيخ المحدث الشيخ بشير شيل أيانا كلمي وحان كلو لكلمي الله مستعان waxaan kaloo la kulmay sheekh ma sha Allah hadda dhalinyarada aad uga faa'iideystaan oo sheekh Maxamed Khashici oo Hargeysa jooga ama Burca waxaa kaloo la kulmay yani sheekh Khashici iyo sheekh Nur Ali Jamac qisada aan kula kulmay waxay ahayd qiso cajiib ah ilaahay dartiis aan u jecel duruustooda ka dhageysanaya maxaa la dhahaa internetka ayaa waxaan ku kulmay baytul mubaaraka bayt ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan intuu meeshu ugu jecel yahay waa makkatul baytullah alharam kula kulmay sheekh Nur Ali Jamac al-Allaama iyo sheekh Khashici marka waxaan idin leeyahay marka walaalayaal culimadan dhan aan soo tilmaamay iyo dadka wanaagsan la kulankooda وحاواي بدبادة بإذن الله الباري جعلك إله يا الوهلة جعلك إله إنه وهلنا حديثك القدسية يا إنه شيء وهذا أنصو تلمامي والله سبحانه وتعالى له وجبت محبتي للمتحابين فيه يعني جعلك وحان واجب وحان كواجب يا جعلك كو إله درتس اسكو جعل لاجل ذلك مرك ولا ليال أني كسيان دوني إن إذا لقي بصدا وحان أوقاتان علماء أنصو شيء دتك بدل لها إلهي سبحانه وتعالى هنقدقها وحد قسونتها ولا ليال
إلهي سبحانه وتعالى إنه نقول المام أمة وخير كبدن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي عليها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلهي عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الله سبحانه وتعالى آيات سكولية آيات كده الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آياتها صنع وحي نشيغا نصوص تاسيو حديث كريم صلى الله عليه وسلم لغا ورينا تقرانيسان بلغوا عني ولو آية بلغوا وتكليف عني وتشريف ولو آية وتخفيف لاجل ذلك إلهي وحن كبريا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنو نغمد ديغا كوي ودد أنبياء ودد رسوشا ودد الصحابة ودد التابعين ودد علماء الربانيين يعني علماء إلهي سبحانه وتعالى وكو علم والراسخون في العلم تذكسوا إليه كنت المامي إنو إلهي سبحانه وتعالى ودد نمرسيا ددال كودن ما كيني كرنسي أسو ددالين في تنت أيا بدطي لاجل ذلك وحاسم أريتاس أيا كينت إنا موضوع وغدغا حلقوين كان وحان فرحده دغناشها كوشا كرادينا ميل قلدن هدانو نهي dhalinyaro aan ilaahay ka baqno dhalinyaro aan culimada ku dayano dhalinyaro aan diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala u istaagno ilaahay subhanahu wa ta'ala fi surati al-kahf oo jumca walba aad aqrisaa wuxuu ku amaanay dhalinyaro wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى دينتا وحكر أسو قاضي لأن يرى أي أحيان صحابة معاذ بن جبل علي بن أبي طالب يعني عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود محالة لها أبي بن كعب يعني يعني لأن يرى أي وضع أحيان إلهي سبحانه وتعالى وحكبر بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه ما أركتي يعني قلبي جينا كسوغا جعيلك دينتان يسيدا ددك u gaarsiin lahayn wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay Ilaahay waxaan ka baryayaa culimadan soo sheegay oo aad wajiyadooda farxadooda aad ka dharagteen cilmigooda aad ka dharagteen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin la kulansiiyo ama la kulankooda aad jeclaataan ee aad iska dhaaftaan baroonidan iyo dadkan ma aragtay heesa iyo dadkan ma aragtay macaal xaalada waxyaalaha kale adduunkan ku mashquulsan inaadan isisiinin wajazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum